war-saxaafadeedkii maanta soo baxay bisha 6deeda iyo kulan khadka taleefanka ah oo ku wada yeelanay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah oo aan ugu wada hadalnay xaaladda dalka marayo waxaan isla qiimeynay inay arrimaha jira aysan ku masaabaxayn in taleefon looga wada hadlo oo la isla meel dhigo runtii waxaa la isla gartay in kulan bishan 9keeda ka dhici doona magaalada dhuusamareeb caasimadda dowladda galmudug runtii la isugu yimaado arrintaasna runtii wixii aan ka oran lahayn iyo wixii laga oran lahaa ma rabo inaan ka hordhaco laakiin ahamiyaddu waxay tahay in lagu qiimeeyo xaaladda siyaasadeed dalka ka jirta sidoo kaleetana waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadli doono waxa weeye sidii dowladda federaalka ah oo iyo dowladaha xubnaha ka ah ay dalka uga wada arrimsan lahaayeen xaaladaha hadda taagan oo la rabo in maaragtay looga gudbo marxaladan ugu muhiimsan tahay xaaladda doorashooyinka ee nagu soo foolna maadaama guddigii doorashooyinka qaranka xaliimo yari guddoomiyaha u ahayd ay si cad u sheegtay in doorasho qof iyo coda aysan qaban karin muddadan hadda ka harsan muddo xileedka dowladda federaalka ah mar haddii ay intaa tiri waxaa ku xiga marka in la yiraahdo maxaa xal noo ah xal maxaa noo ah marka laga hadlayana cidii u taalla waxa weeye waa xal siyaasi halkaas waxaa ku soo xirmay waxa la yiraahdo xalka qaanuuniga ah oo la filay xalka qaanuuniga waxay ahayd in doorasho ay qabsoonto oo xilligeeda ku qabsoonto oo guddiga doorashooyinku ay qabtaan way qaban waayeen mar haddii qaban waayeen waxaa la rabaa marka in xal siyaasi laga gaaro maxaa ku xiga xalka siyaasiga ayuu kulankaani u soo horeeya uu qaybta ugu muhiimsan uu ka yahay inay bal ka sheekaystaan maamuladu kadibna ay dowladda federaalka la wadaagaan kadibna cid kasta oo ay khusayso arrimaha siyaasadda dalka inay arrimahaas kala hadlaan waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu yeesho weji weji soomaaliyeed loo fahmo oo dadka soomaaliyeed ay u fahmaan inuu yahay qayb ka mid ah waxyaabaha dalka soomaaliyeed horumarkiisa siyaasadeed looga shaqaynayo ujeedadiisa ugu weynna ay tahay in marxaladda adaga nagu soo fool leh ay mas-uuliyiinta isugu imaanaysa ay ka wada hadlaan si ay dhinacyada ay aragtidooda ku kala duwan tahay ay uga wada hadlaan iyagoo ka fiirinaya in la helo xal lagu wada qanacsan yahay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dadka kaleeto la rabo in loo arrimiyo ama hadda baarlamaanada ah ama ururada siyaasiga ah ama bulshada indheergaradkeeda ah ama cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasadda iyo daneeyayaasha oo Soomaaliya dadka saaxiibada iyo walaalaha dowladaha anay oo runtii dadaal badan ku bixiyay sidii dowladda Soomaaliya u jir lahayd oo mal walba ka walwalsan runtii horor socod la'aanta ka jirta siyaasadda Soomaaliya oo aan rajaynayo inay mar dhow soo afjarmi doonto waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto guul